sideed albaab ee jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jira buu yidhi markaasuu nabigu yidhi nacam wa arju an takuna minhum haa way jiraan rag sideed albaab ee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abuubakarow abubakar keliya ka gali maayo sideed albaabe waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nabigu yidhi shanta waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo sideedda albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideedda albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela afartaa camal bisha rabadaan oy soonto shanta waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo afartaa gabadha laga hela buu rasuulku yidhi sideedda albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaisha weydiisay wuxuu nabigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tiri maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nabigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi bn cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi bnu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay muuminad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan u raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayni dhigtay raabica ayaa la weydiiye oo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysano oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yihi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab
badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nabigeenu istaagay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal, hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan, usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan. muuminka dhabta ma badilmay, waxbuu badilaa, lama saameeyo waxbuu saameeyaa. dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya, ardul islaam bay ka tegeen, indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay, akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii. 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina, masar buu u diray. 8 kun baa dalkii oo dhan badishay. muuminku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimat illaah, ixyaa addiin fi lcaalam, nashr nicma, muuminku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo, inuu nicmadan ummadda ugu yeedho, inuu diintan caalamka uu meel walba u maro, hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro, uu dhaqaalo u bixiyo, u dhaxo, u dhoofo, ma badilmaya, isagaa wax badilaya. lama saamaynaya, isagaa wax saamaynaya. ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay? ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna. rag iyo dumar, ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam, manhajka uu kaga tegay waa maxay? 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd: cilmi iyo camal iyo dacwa. 3daas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd. nin kastoo saxaabiya, gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim, diintooda way yaqaaneen; caamilan bidiinihim, diintoodana way ku camal falayeen; daaciyan ilaa diinihim, diintoodana ummadda way ugu baaqayeen. alcilmi walcamal waddacwa, 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa, kagama tegin caalamkee, wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay, oo diintu ay la weyn tahay, oo iimaanku uu la weyn yahay, oo islaamnimadu ay la weyn tahay. cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay, masar buu yimiday, libiya ayuu yimiday, muxiit alatlas maqrib intuu istaagay. zamankan waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin. faraskii intuu badda geliyey buu yidhi: yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah. yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi. alaan arjac ila almadiina, haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina. maxaan u noqonayaa? lianna alarda intahat, lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi. haddeetoole uu celiyey faraskii, jazaa'ir buu markaa ku dhintay, halkaasaa lagu aasay. madiinuu ku barbaaray. cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuuhaa, waxa uu ku aasan yahay suudaan. aba ayub alansaari ree madiina ayuuhaa, istanbul buu ku aasan yahay. abi waqaas ree madiina ayuuhaa, siin buu ku aasan yahay. cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa, faranse buu ku aasan yahay. bilaal ree makuuhaa, wuxuu ku aasan yahay dimashq. kam min asaxaaba caalamka ku aasan, kam muslimiina dalkan maanta ku aasan. laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan. saamaxa, hoosta waxba aygu qabanina. hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconno iskuma dhowo walaalayaal. lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa. dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa, waa inaan bedelnaa. waa ilaa haddii kale khatar baa ku jirnaa. niyaddeeni waan bedelaynaa. maxaanu bedelaynaa? inaan dalkan joogno, laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno, oon ka bilowna shaqada diinta. muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadkii yimide dalkan? ayna hum maanta? inta soo galaysa maskiidka ha ku farxin, ziyaaraadka bax, jawladda bax, raac jamaacadada dibadda u bax, waad yaabi doontaa. tastaqrib. ayaa u soo baxaya. innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam: man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi. falaysa minhum, ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin, ka murugoon, naga mid maha buu yidhi annaka, ama muslimiintaba ka mid maaha. dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay? bucdu can iddiin. dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday. dhibaatadee ka weyn? allah ina fahamsiiyo. dee niyadda ma bedelaa? dhahada dee bal u ciila niyaddii waan bedelow, gacanta taag. mustaacidiin dhahada. oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe, bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi. kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa? yaa
سافر تجد